assalaamu calaykum kusoo dhawow dadaal academy haddii ay tahay markii kuugu horeysay fadlan kusoo biir dadaal academy casharkeenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa phrasal verbs for your morning routine ficilada sida joogtada ah u dhaca aroortii. I wake up to my arm. Anigu waxaan ku soo kacaa caalamka saacadayda. I wake up to my arm. Waxaan ku soo kacaa caalamka saacadayda. I turn off my alarm clock. Intaa ka bacdi waxaan damiyaa my alarm clock. Markaan ku soo kaco waxaan damiyaa alarmka saacadayda. I turn off my alarm clock. Waxaan damiyaa alarmka saacadayda. I get out of the bed. Waxaan ka soo degaa sariirta. I wash the sleep out of my eyes. Waxaan dhaqaa indhahayga. Waxyaalaha ku yaala markuu qofku soo tooso xafajada iyo waxaas ayaa ka meedhaa buu leeyahay. I put on some makeup. Marka waxaan marsadaa waxoogaa makeup-a. Marka waxaa laga hadlayaa routiinka aroornimadii qofku uu qabto rag iyo dumarba. Waxyaalaha ugu badan ee dhaca aroornimadii qofku markuu soo tooso. I put on some makeup. Waxaan marsadaa waxoogaa makeup-a. I brush the knots out of my hair. Waxaan damniinka ka furfuraa timahayga. I brush knots out of my hair. Waxaan damniinka ka furfuraa timahayga. Intaa ka bacdina I take out my brush and toothpaste. Waxaan la soo baxaa cadaygayga iyo daawada cadayga. I put on the toothpaste on my toothbrush. Waxaan cadaygayga marsadaa daawada cadayga. I spit out the toothpaste. Daawada cadayga ayaan tufaa. I put back my toothbrush. Waxaan dib u celiyaa cadaygayga. Oo halkii aan ka soo saaray baan ku celiyaa buu leeyahay qofkani. I pick out my clothes and get dressed. Dharkayga ayaan la soo baxaa waanan labistaa. I get dressed. I hang up my clothes. Dharkayga ayaan meel surtaa. Hang up surasha la dhahdaa. My clothes. Dharkaygaan meel sudhaa buu yidhi. I hang up my baby. Ilmahayga ayaan kor u qaataa. I heat up some water in a kettle. Waxoogaa biyo ah ayaan kildhiga ku kulaylistaa. I pour out the water. Waxaan daadshaa biyaha. I whip up some breakfast. Waxoogaa quraaca ayaan karsadaa. I go over my plan for the day. Waxaan kormaraa qorshahayga maalintii. Marka qofku haddaanu qorshihiisa maalintii aanu qorshaysan waxba uma kala nidaamsanaanayaan. Qofku inuu jalwad lahaado ayaa fiican. casharkeenu maanta intaasuu ku eegyahay. Intaan cashar dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.